بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين مeel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada Hanfade Production. waxaadna daawan doontaan ciyaar xiiso badan oo dhex martay kooxaha heerka labaad ee Elman iyo GFC oo wada ciyaaray ciyaar loogu magac daray Allahu naxariiste Ilyas Cabdinuur oo xilligan ka soconaya garoonka Yameeska Dabaasha ee xaafadda Siinay ee magaalada Gaalkacyo. aynu gudagalno falanqaynta ciyaartaasi xamaasada markii laga eego dhanka taageerayaasha ayaa waxaa laga dheehan karay shucuurtooda ay sareysay 90 daqiiqo oo ay wada ciyaareen kooxaha heerka labaad ee Elman iyo GFC. ma sahlaneen in la saadaaliyo ciyaarta ka hor inta aan seeriga uu yeerin garsooruhu, hase yeeshee wax waliba waa isbedeleen kadib ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaara kooxda Elman Sharmaka DJ oo u dhiibay kooxiisa hoggaanka, waxaana ilaa dhamaadka qaybta hore ee ciyaarta ay ku naaloonayeen gool iyo eber, waxaana la aaday nasashada ciyaarta oo ay garab socotay waxay soo sheeg canaan iyo dhiirigelin kuwaasoo labada macallin oo ka falcelinayay dadaalada kooxahoodu, waxaana la isku soo laabtay qaybta hore ee ciyaarta oo Elman ku tashatay laba hoolood oo ah inay difaacato hoggaanka siina dheeraysato, halka kooxda GFC iyadana ay doonaysay in ay iska horleexiso wadada qodxaha leh ee wadada tareenka ay kaga degan kartay si ciyaarista koobkan oo ay rajadoodu ku xirneyd inay guul ka gaarto. waxaana sahlaneen midaas in la sii sheego waxa dhacay oo kaliya waxa rumaysan karay cidii ciyaarta joogtay. Nuur Saweyne ayaa garoonku u bedelay jawi aan kala garan waayay ciyaaryahanada iyo taageerayaasha oo isdhex qaaday, waxaana uu kooxiisa u diyaariyay inuu ku dhiiran karto badin, taasoo macnaheedu tahay in ciyaartu uu ka dhigay gool iyo gool. ciyaartu waxay socotaba Maan Cali ayaa mar kale kooxiisa GFC u horseeday in uu hoggaanka u dhiibo, waxaana uu ciyaarta ka dhigay mid lagu kala daray 2 gool iyo gool, sidaasna GFC ay ugu gudubtay wareegga afardhamaadka. mid ka mid ah guddiga koobkan ayaan weydiiyay inuu sharaxo halka ay kala marayaan kooxuhu maadaama koobka uu ku sii siqayo afardhamaadka. bismillaah, anigoo ku bilaabaya kuna hadlaya magaca dhalinyarada sportska gobolka Mudug. halkan waxaa ka socday koob in muddo socday isbuuciya 6 kooxood oo ka dhisan xaafadda Israac, gaar ahaan agarka Siinay. koobkaas oo loogu magac daray Allahu naxariiste marxuun Ilyas. koobkan wuxuu ahaa 6 kooxood, hadda waxaa wada dhashay kooxo badan, waxaa haray 2 kooxood isagoo ahaa 6 kooxood. ciyaarta iyo guud ahaan waa u tagi doonaa. waxaan rabaa in aad daawadayaasha u sharaxdo 6 kooxood ee lagu furay koobkan halkan ka socda maanta. waxa weeye 6 kooxood waxaa lagu kala magacaabaa Siinay, Elman, GFC, Salaamo, Halane iyo kooxdan kale oo lagu magacaabo Nawaawi. hadda koobkii waxaa ka haray 2 kooxood, waxaan isku soo hadhay 4 kooxood, saasoo ay tahayna 4 kooxood baa waxa loo qori tuuri doonaa semifinal. maxamed yuusuf cabdikariin oo qabanqaabiye koobkan loogu magac daray Allahu naxariisto Ilyas Cabdinuur ayaa dhankiisa sheegay inuu meel wanaagsan marayo koobkan. bismillaahir rahmaanir rahiim. waa mahadsantahay Hanfade Production wa salaamiya. salaan kadib koobkan waxa ugu dhaliyay horta markii ugu horeysay waxaan ugu dhiirigeliyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug sportska. talabada waxaan ugu dhaliyay waxaan aragnay muddo in sports la qaban ragii waaweyn sports seeraan siirayaan say dhalinyaro u soo baxdo oo loo helo kooxii u anfacda baan koobkan u qabtay. anaana fikirkeeda lahaa, haddana meel fiican bay maray, wax caqabadi wax buuq iyo wax dagaal midna kama dhicin, si fiican buu ciyaareen, si wanaagsan buu ciyaareen, aad buu socdaa koobku, aad buu qurux badan yahay. dhanka kale garoonka Yameeska Dabaasha ee xaafadda Siinay ee magaalada Gaalkacyo ayaa ka mid ah garoomada ugu magac dheer magaalada Gaalkacyo, waxaana xilligan uu u muuqanaya mid magaciisa baabi'i rabo maadaama calaamado dhul cabir laga mutay, taasoo ay u dheertay 3 geed oo ku dhex yaala garoonka dhexdiisa iyo marin ee baabuurta maraan. gudoomiyaha ciyaaraha gobolka Mudug ee Puntland Maxamed Yuusuf Faarax Qowdhan ayaan weydiiyay qorshaha uu maamulku u diyaariyay jiilka da'yarta ah. waa soo dhaweynayaa bahda Hanfade. koobkan waxa weeye koob 6 naadi aan ugu talagalay in dhalinyaradu inta garoonka furmaya haddii Allah wada ogolaado in
aanu naadiyaasha serbida sii dhisno si naadiyaal quality leh loo helo oo aan hadhowto runtii ugu qabanno koob weyn oo caalami ah oo gobolka dhan ah marka qorshahaasaan ku jirnaa xaafadaha kalena waa ka soo qabanay mid kale 6 kooxood asagoo naga dhamaaday xaafadda Israac tan oo Siinay ahna 6 kooxood baan ugu haynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa hadii Allah wada inaan helo serbi quality leh oo heer gobol ah hadii Allah wada ogolaado waa aad u fiican yahay gobolkan Sisamba wuxuu uga duwan yahay gobolada kale ee Soomaaliya marka laga reebo Muqdisho dad sports jecel oo dhalinyaradu aad sports ku jecel yihiin taageerayaashooduna way wataan oo koox walba magaceeda iyo xaafadda ay ka timid iyo taageerayaasheeda soo raaca marka xiiso gooniyay taan dhalinyaradu u leedahay marka koob loo qabto wayna ka soo qayb galaan dad badan baa daawada gudoomiye inta aad joogto doorka siin doonto ciyaaraha heerka labaad iyo saddexaad maxay noo sheegi kartaa waa doorka ugu weyn sababtoo tahay dadka aan garoonka loo dhisay waa door jiilka soo kacaya waa rabaa in laga dhiso sharciga ay ku dheelaan meel qurux badan waqti badan aanu gelinay juhdi badan geliyeen dad badan runtiina waxa weeye wanaagaas waxaan rabnaa in dhalinyarada uga faa'iideyno qaab sharci ah koob ugu qabanno oo sharciga sportska dib u soo noolayno hadii Allah wada ogolaado sidoo kale gudoomiyaha ayaa bogaadiyay doorka qurbo joogta oo kaalin muuqata ka geysata ciyaaraha gobolka Mudug niyo taageerayaasha ama raggaas sports waxaan oran karnaa inay yihiin mulkiilayaashii ka dambeeyay garoonka Cawaale in lagu dhismo oo ku bixisay fikirkooda iyo maalkooda haddana nala garab taagan inay nala dhisaan sportsiga marka guul baan u rajaynayaa meel kasta ay dunida ka joogaan waliba bahda Mareykanka oo aan ku tilmaamno inay yihiin dad quality leh oo mar walba garabna siiya oo waxa ugu horeeya Mijir oo aan la soo koobi karin gudoomiyaha sportska Cabdihoodan isagoo laftiisa Yurub u jooga raggaas waxay ka qayb qaataan mar walba sidii sportska gobolka loo horumarin lahaa haddana runtii waxay naga ballan qaadeen inay nagala shaqeeyaan sidii maartay sharcigiisa loo ilaalin lahaa loona horumarin lahaa hadii Allah wada ogolaado Yusuf Maxamed Axmed Hanfada Production magaalada Gaalkacyo